howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan qaybna ay ka ahaayeen xildhibaano wasiiro hore ugu tirsanaa maamulka Hirshabeelle, maamulka degmada Beledweyne iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ayaa ka dhacay deegaanka Ceelka Baar, Beetaale iyo weliba deegaano kale ee hoos yimaada deegaanadaasi. Inta uu howlgalka socday ayaa waxaa lagu baacsaday xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo dadka deegaanka halkaani kaga qaadi jiray xoolo baad ah oo ay ku tilmaamaan sakaawaad. Taliyaha saldhigga galbeedka Beledweyne iyo weliba gudoomiyaha degmada Beledweyne Mudane Cismaan Dhicisow Dhuubow ayaa si wadajir ah waxa ay faahfaahin kaga bixiyeen ujeedka howlgalkani. maanta howlgal qorshaysan baa maanta soo qaadnay nala sheegay nimankii nabadiidka ahay oo dadka shacabka xoolo sakaawaad ka arursanaya maadaama nala sheegay markii dadkii shacabka dhibaato lagu hayay saakii howlgal baan soo qorshaysan soo qaadnay ummadii dhibaatadii ay ku hayeen waa ka dul qaadnay haddana maxaa joognaa tuulooyinka mid hadda aan joognaa ilaaha ma hadda iskale wax hadda qasaaro hadda anaga naga soo gaaray ma jiraan ayaga hadda waxaan ka hayna ma jiraan laakiin waa un carareen markii anaga nolosha aagi aan tagnay way ka carareen hantida ummadda ay ka qaateen waan ku wareejinay. waxaan tagnay baar iyo luuqa jeelow iyo tuulooyinka hoos yimaadaan tagnay nimankii nabadiidka ahaay oo sakawaad ku aruursanaya ayaa noola sheegay meeshaan aadnay marka way kala carareen marka wax tabartooda intaas ay iska dhantahay waaya. waxaan leenahay dawladda federaalka inay u soo amarto dadkan lagu dhadheelayo 24 saac maarta la guumeysanayo xoolooda xoog iyo lagu haysto insha Allah in laga dulqaado la rabaa. Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax kala dire iyo waliba wasiirkii hore ee amniga Hirshabeelle Cabduqaadir Aadan Jeelle ayaa waxa ay ugu baaqeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Hirshabeelle in dadkan cadawga ay ka xureeyaan lana soo gaarsiiyo waxyaabaha aasaasiga nolosha. waxaa lana marka hay'adaha iyo dhammaan dawladda Soomaaliyeed iyo tan Hirshabeelle dadkan waa in loo soo gurmadaa cadawga laga dulqaadaa loo qabtaa macnaha muxuu wixii bilaadanimo ay ummadda magaaladan hareeraha degan wixii loo qabanayo loo qabtaa tuulooyinkan Ceelka Baar hadda aan ka nimaadnay waxa ka jirta biyo la'aan oo xaalad baahsan ah cunno yari dhibaato ka jirto oo argagixisadan ay haysataa. waxaa lana marka Hirshabeelle iyo federaalkaba waa inay u soo gurmadaan halkan oo sector 4 iyo sector 3 ciidamada Amisom iyo ciidamada militariga Soomaaliyeedna laga siiyo xerooyin halkan si dadkan loo badbaadiyo naftooda. waxaan u baahanahay in maaragtay dawladda federaalka iyo midda Hirshabeelleba ay ka qayb qaataan dadkan maaragtay sidii lagu horumarin lahaa gargaar loo soo gaari lahaa amnigoodana loo sugi lahaa. ugu horreyn waxay u baahan yihiin biyo iyo waxbarasho marka waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo midda Hirshabeelleba in maaragtay dadkan ay u soo gurmadaan maaragtay la shaqeeyaan ay horumariyaan. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Beledweyne.